aad baad u mahadsan tahay daawadayaal ku soo dhawaada wararka aan idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. warkan waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Iglan Saalax. wararka aan idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah dabley hubaysan ayaa habeennimadii xalay weerar qorshaysan ku qaaday goob ay deganayeen macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee xerada qaxoontiga ee Xagardheer. dableydan ayaa la sheegay inay halkaas ku dileen hal macallin, saddex kalena ku dhaawaceen. faafaynta warkaasina waxaa magaalada Xagardheer inooga soo diray wariyaheena Yaasir Cabdirasaaq. dabley hubaysan oo aan heybtooda la aqoonin ayaa habeennimadii xalay siqdii dhaxay weerar qorshaysan ku qaaday xarunta hay'adda samafalka Window Trust Kenya ee u qaabilsan amuuraha waxbarashada xerada qaxootiga ee Xagardheer oo kamid ah xeryaha qaxootiga gobolka Waqooyi Bari dalkani Kenya. kooxahan hubaysan weerarkii xalay ay ku qaadeen hooyigii ay macallimiinta ka deganayeen xarunta hay'adda Window Trust Kenya ee wax ka dhiga dugsiyada sare ee Xagardheer High Secondary School iyo Waberi Secondary School ayaa sababay dhimashada mid kamid ah macallimiinta wax ka dhigta dugsiga sare ee Xagardheer Secondary School. macallinkaasi ayaana lagu magacaabi jiray Njue Job oo isla goobta ku geeriyooday kadib markii ay dableydaasi rasaas kala dhaceen qaybaha kala duwan ee jirkiisa. weerarkan ayaana sababay dhaawaca saddex kamid ah ilaaladii xarunta macallimiinta ay ka deganayeen xarunta Window Trust. isla mar ahaantaana waxaa aroornimadii saaka loo qaaday magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya ilaaladii uu dhaawaca ka soo gaaray weerarkaasi. waxaana soconaya dadaalo ay wadaan laamaha ammaanka ee dalkani Kenya oo lagu baadigoobayo dableydii weerarkaasi ka dambeysay oo aanan ilaa iyo haatan la aqoonin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. dhacdadan ayaana ah mid ugub ku ah xerada qaxootiga ee Xagardheer. weerarkani ayaana imaanaya kadib markii ay dabayaaqadii sanadii tagtay 2014 weerar jidgooyo ah lagu qaaday macallimiin wax ka dhigta magaalada Mandheera. Yaasir Cabdirasaaq Xuseen, telefishinka caalamiga ee Kalsan, xerooyinka qaxootiga Dadaab. haweeney gacanta ku haysay dacwada 13 ruux oo lagu eedeeyay inay ka tirsanayeen ururka Al-Shabaab ayaa lagu toogtay bartamaha caasimadda Kampala ee xarunta dalka Uganda. John Kagesi oo ahay dacwadoogaha qaranka dalka Uganda oo gacanta ku haysay dacwada 13 ruux oo looga shakeeyay inay lug ku lahaayeen weeraradii Al-Shabaab ka geysatay dalka Uganda. sanadkii 2010 ayaa lagu toogtay bartamaha caasimadda Uganda. Kagesi ayaa waxay gacanta ku haysay kiiska rag looga shakisan yahay Al-Shabaab oo la sheegay inay lug ku lahaayeen weeraradii ka dhacay 2010 dalka Uganda. haweeneydan oo madax u ahayd waaxda ka hortagga dambiyada iyo la dagaalanka argagixisada toddobaadkii tagay ayaa dawladda Mareykanku waxay ka digtay inay weerar ka geysato Al-Shabaab gudaha dalka Uganda. booliska Uganda ayaa sheegay inay dableydan hubaysan ay dacwadda ku soo oogtay ay dabagal ku hayeen muddo. dilkan ayaa wuxuu ka dhacay kiniisadda lagu magacaabo Katua Church oo u dhow xaafadda ay ka degan tahay haweeneydan magaalada Kampala. wiigii la soo dhaafay ayaa la sheegay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni khudbadu ka jeediyay aqalka looga arrimiyo baarlamaanka dalka Uganda uu ku sheegay inuu u magacaabi doono garsoorka maxkamadda sare ee dalka Uganda. weerarka bambaanada ee lagu qaaday magaalada Kampala 2010 ayaa waxa ku dhintay 76 qof oo daawanayay ciyaarihii kama dambaysta ee koobka adduunka. 4 ruux oo ku eedeysnaa weeraradii horaantii sanadkan ka dhacay degmada Karomi ee duleedka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ayaa lagu sii daayay damiin lacageed. faafaynta warkaasina waxay noo haysay wariyaheena Farduus Axmed Bedel. 4 qof oo ku eedeysnaa in ay ka dambeeyeen weerar ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux oo ka dhacay deegaanka Koromay oo ku yaala duleedka magaalada Mandheera ayaa maalinnimadii shalay waxaa lagu soo daayay damaanad lacageed. xaakimka maxkamadda dhageysanayay dacwadda eedeysanayaasha ayaa amar ku bixiyay in mid kasta oo iyaga ka mid ah in uu bixiyo 10 milyan oo shilin lacag gaaraysa iyo wakiil 2 qof ah oo Kenyaan ah. 4 qof oo dhammaan ah rag dhalinyaro ah ayaa ku eedeysanaa xasuuqaas oo dhacay 2 bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. eedeysanayaasha oo maxkamadooda 10 bisha Juun dib loo dhageysan doono ayaa waxa ay sidoo kale ku eedeysan yihiin in ay sharci darro dalka ku sugnaayeen xilliga la soo xireeyay. weeraro badan oo ka dhacay dalka iyo gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa mas'uuliyadooda inta badan sheegta kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama dalka Soomaaliya. xarunta Westgate Mall ee magaalada Nairobi ayaa la sheegay in dib loo hawlgelin doono
kadib weeraro ay ku qaadeen ururka al-shabaab sanadii 2013 xarunta Westgate ayaa kamid ah xarumaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Nairobi. faafahinta warkaasina waxa inoo hayay wariyaheena Cabdixakiin Saciid. xaruntii ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi ayaa dib loo furayaa kadib markii ay weerar halkaasi ku qaadeen kooxo ka tirsan ururka al-shabaab bishii September sanadkii 2013 weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ugu yaraan 70 qof tiraynta ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen. gudoomiyaha magaalada Nairobi Mike Sonko ayaa sheegay in bisha 7 ee sanadkan dib loo furi doono xaruntii ganacsiga ee Westgate Mall kadib markii ay xidhnayd tan iyo bishii September 2013 waxaana ugu baaqay ganacsatadii halkaasi inay isu diyaariyaan sida ay dib halkaasi uga bilaabi lahaayeen hawlahoodii ganacsi. xaruntii ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi ayaa dhimashada dadka ka sakow waxaa soo gaadhay khasaare baaxad leh iyo burbur kadib markii uu dabqabsaday qaar ka mid ah goobihii ganacsiga ee moolkaasi. bishii September sanadkii 2013 ayay ahayd markii kooxo hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Westgate Mall halkaasi oo ay ku jireen ugu yaraan 4 maalin isla markaana ay ku nafwaayeen dad kor u dhaafaya 70 qof halka tiro inta ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen. waa tahay daawadayaal waxa intaasi nagaga eeg wararkii aanu idinka haynay bariga Afrika oo idinka imanayay studio Kalson TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. warkana waxa idin la socodsiinaysay anigoo Iglan Saalax. haatana u diyaar garooba xubinta ciyaaraha warka Kalson TV uu idin la socodsiin doono wariyaheena Mawlid Warsame Kulane.